qaladka ku samaynayo waa inaan loo dulqaadan ta kale waxa weeye groupkan raba gooyda groupka hargeysa aan sheegay hadii gooraale waxay yiraahdeen wala naxasuuqay saasan u go'ayna iyo kan laftigoodu maanta bishu waa 5 waana February shalayna 4 bay ahayd 1991 isla maalmaha magaalada la yiraahdo Dila iyo magaalada la yiraahdo Boorama kun iyo wax ka badan bay ku xasuuqeen iyo koox ciidamadii Mingiis la socday hadii marka maanta uu ku dacwiyo qabiilkii gada buursiga oo yiraahdo wala ay xasuuqay anna Soomaaliya waan ka go'ayaa waa hadal uu oran karo wuxuu oran karaa wala ay xasuuqay inuu cadowgayga tiin buu oran karaa groupkan mudane Saleyman in waa aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa Yaasiin naad baan ugu mahadnaqayaa Ismaaciil iyo intii nadaadihinayso dhan in dadka meesha ku jiro dhanna waan salaamayaa marka ugu horreysay waxaan ku bilaabayaa in waxaan ka hadlaynaa midnimada Soomaalidu maaha de wax la moogtahay iska dheeldheela maaha waa wax riyala oo runa wad ogeydeen oo muxuu ahaa magacyadan oo dhan markaa turto dadka Soomaalidu deegeeska Afrika ay ku wada noolaayeen quruumo fara badan oo ku noolaayeen ilaa intii de la garanayo dadka Soomaalid ee ku dhaqani waxa la yiraahdaa 5 Soomaaliyeed baa jirta anu ma aaminsan wax 5 Soomaaliyeed la yiraahdo waxaan aaminsanahay inay hal Soomaali jirto way Ingiriisku Soomaali ma ahayn Talyaaniguna Soomaali ma ahayn waxa jirtay in 5 Soomaaliyeed oo markay leeyihiin dadku waxyaalo badan baa loo si kala loo fasirnaa loo bedelayaa imika igar halaw wasiir mawduuca hore waad u gashay ma sha Allah ma hasabtay laakiin 1 minute noogu yar dar adiga macnaha meesha ku dhalatay hubaalka inta yar noogu tarsay dadka aad soo yare anagoo garanayna laakiin soo qabataan iyo profilka okay aniga magacayga waxa la yiraahdaa in Hamid Maasheeye waxaan ka soo jeedaa gobolka Awdal waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Boon oo ku taala gobolka Awdal oo marka Boorama laga tagay xagga Saylac loo socdo shaqadii ugu horeeyayna waxaan ka soo bilaabay jaamacadii Muqdisho ee Gahayr chemical industry-ga loo oran jiray هذا على كل حال waxaan ku soo noolaaday dalka Cuba oo jaamacadda Havana ka bilaabay jaamacaddii Soomaaliyeed markii dambe dagaaladii dhacay waan ka dhameystay aduu markii dambe Ingiriiskan tagay jaamacaddii Soomaaliyeed dirtay jaamacadda Manchester ayaan ka qaatay petroleum chemistry ama petrochemicals kan masters ku sameeyay Soomaaliyan ku noqday jaamacaddii ka shaqeeyay dibadna waan ka tagay على كل حال Canada ku dambeeyay aanu sii maray Djibouti iyo Abu Dhabi halkaan waxaan ka sameeyay meelna waan ka shaqeyn jiray mar jaamacadda Concordia la yiraahdo ku taala Montreal iyo laftigeena waxaan ka sameeyay masters kale oo dhaqaalaha oo labaad oo dhaqaalaha marna waxaan ka shaqeyn jiray meel chemicalska على كل حال markii dambe oo tawan tagay jaamacadda oo tawan laftigeeda waxaan ka bartay wax la yiraahdo system science masters ka saddexaad baan ka dhameeyay aduu على كل حال computers waxaan galay markii dambe aduu على كل حال Mareykan ma soo galay Mareykan jaamacadda Dallas iyo wax ka sii bartay jaamacadaha la yiraahdo ku taal waxaan ka sii bartay xisaabaadkana waan sii bartay marka noloshayda oo dhan kulay educator baan ahaa educator ayaan ahaa marka inta aan wasiiru dawladda ahaa de xamar joogay baa ka duwan laakiin inta kale educator baan ahaa oo marka baraan ahaa education aad baan u jecelahay siyaasadana waan jecelahay dhaqaaliye waxyaalaha kale oo bartana aad baan u jecelahay waxaan oo dhan waan daneeyaa marka intaas waa hordhac waan ka baxayaa way waqtigan nagu sinaynin على كل حال waxaan u galayaa mawduuca ummadda Soomaaliyeed aan waxaan u haystaa inay tahay ummad isku mid ah oo weligoodna isku mid ahay imikadana waxaan u haystaa inay jirto hal Soomaaliyeed oo 4 wadan ku kala nool oo ah Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo dalka Kenya iyo dalka Ethiopia iyo dalka Djibouti waa hal Soomaaliyeed oo 4 wadan ku kala nool hanu galo marka Soomaali waxa weeye kale waxaan rumaysanahay in wax walba runta laga sheego sida imika baan u hadlaayeen la Soomaalidu waa mid oo cidnimada firi karto 60kiina waxa isku keenay waxay ahayd in midnimada u raadinaynay dad afku wada hadlaan ahayn dad isku diinaan ahayn dad isku asalabaan ahayn marka laga bariyahan dambe waxaad moodaa in taariikhdii la bedelayo iyad moodaa marka waxaan jecelahay si de Soomaali dadka moogtay midnimada jecel u fahmaan midnimada iyo nation ka duwan Soomaali inay nagu dhex nooleen gidi wada Soomaali ahayd bal waqooyiga laftigiisa laga sheekeynayo ee la leeyahay uu go'aya maxay ahaan jirtay ma dad Soomaali ka duwan bay ahaayeen ma dad Soomaali ahaayeen ma dad ka duwan bay ahaayeen takalna waxaan u galayaa dawladda Soomaaliyeed xilka ka saaran in isku haynta wadanka marka waxaan ku horeynayaa tan waqooyigan ku horeynayaa marka hore waqooyigu min nation gaar oo Soomaali ka duwan buu ahaa oo marka xaq u leh inuu Soomaali ka go'o oo wadan gaar ah noqdo anu waxaan rumaysanahay dadka waqooyiga degan inay Soomaali u yihiin wadankana ka mid yihiin ninka Kismaayo joogi iyo loo yacda joonu isku mid yihiin waxaan niga soo qaadayaa 1884 ka hor
in Soomaalida jirtay waxay ahayn qabaa'il iswada garab degan oo Soomaaliya una midkoodna mid xukumin waqooyiga laftigiisana qabaa'ilka degan waxay ahaayeen qabaa'il isgarab degan oo midkoodna mid xukumin mid waliba ugaas iyo garaad iyo salaadiin gaar ay kala leeyihiin xukun ka dhaxeeyay oo midaynayna ma jirin Ingiriiskii koor 1884 Ingiriisku markuu inoo yimiday qabiilada halka degani qabiilka dhulbahantaha mooyaane inta kale oo dhani waxay la saxeexdeen iyagoo mid waliba xora oo isin moogtay Soomaalina alayso xora oo cid kale masilin ayuu Ingiriiska wax la saxeexday in qabiilka Gadabursiga hadii aan ku bilaabo oo anu ka soo jeedo magaalada Saylac ayay kula saxeexdeen muxuu ahaa in Ingiriiski iyo kula saxeexdeen oo moogtay in qabiilka Ciisaha oo dayadna hooyaday ka soo jeedo waxa weyn isna halkaas kula saxeexday magaalada Saylac ayuu kula saxeexday qabiilka Isaaqu wuxuu kula saxeexday Cadan iyo magaalada Buluxaar ayuu Ingiriiska kula saxeexday 1884 qabiilka Warsangeligu magaalada Laasqoray buu kula saxeexday Ingiriiskii mucaahido marka qabaa'ilkaas oo dhan midkoodna midna masilaynin waxay ahayn qabaa'il Soomaaliyeed oo iswada garab degan oo jaara oo iswada ixtiraama nation gaar oo marka oo ummadii Soomaaliyeed ka duwan ma yahay waxaan Soomaali ka mid ahay in anigu soo daro markaan soo socdo muxuu ahaa waqtigii Ingiriisku uu xukumayay goboladaas markii Ingiriisku gobolada xukumayay Ingiriisku wuxuu xukumi jiray wuxuu lahaa Ingiriisku waxa la yiraahdo xukun in moogtahay dadban oo kale moogtahay oo la oran jiray indirect rule yaa jiray oo xukunkaasi qabiil walba Ingiriisku gaar buu ula macaamili jiray isagoo haddana dushii ka wada haysta ayuu haddana gaar ula macaamili jiray oo qabiilna qabiil marka sheekadiisa ugu madari jirin oo yani midka kale ma oran jirin kana kan xukumiye kana kan xukumo mid walba gaar buu ula moogtay macaamili jiray dadkii haddana wada Soomaaliya laysa qabaa'ilkii wuxuu ixtiraamay treaty-ga uu la dhigtay aan ka soo boodo taa marka xorriyadda markii la qaadanayay bishii May 23 1960 Ingiriisku markii uu si moogtay formal xorriyadda u siinay gobolada waqooyiga horta magaalada London baa la tagay qabiiladii marka waqooyiga uu marka gumaysanay oo marka dii qabiilkii dhulbaanta ku jiro laakiin markii dambe protectorate-kii ku soo daray qabiil walba qofkii masilaayay ayuu gaar uga saxeexay in uu moogtahay xorriyadda siinayo marka Ingiriisku wax Somaliland la yiraahdo in xorriyad ma siinin wuxuu siiyay wayna qoran tahay wuxuu siiyay territories-kii uu xukumayay dhulkii uu xukumayay oo marka qabaa'ilkii uu la saxeexday ahayd buu xorriyadda siiyay iyaguna marka iyagoo mid waliba uu xor yahay ayuu marka lagu heshiiyay in Soomaali lagu biiro ta kale aniga soo qaadee xorriyadda intaan la qaadan dadka aniga sheekeynay qaarkood loo oran jiray USP United Somali Party loo oran jiray oo marka ka koobnaa qabiilka Gadabursiga Ciisaha in dhulbaantaha iyo Warsangeligu xisbi gaar ah bay samaysteen iyagoo marka ay rabay inay Soomaalinimada ku darsadaan marka qabiil Soomaaliyeed oo qabaa'ilka kale marka u yeedhinayay oo koonfur geeyay ma jirto ta kale calankan moogtay la leeyahay koonfur baa la geeyay ma jiro calankan waqooyi moogtahay Soomaali wada qaatay horan ugu wada heshiisay wuxuu ahaa calankii 1954 dawladdii Cabdilaahi Yuusuf ee marka Muqdisho ka jirtay koonfurta jirtay calankii uu baa la qaatay calan kale oo hoto laga soo qaaday waqooyi oo la geeyay muxuu ahaa in Muqdisho ma jirto ta kale waxa weey xorriyadda markii la qaatay 1960 tuulo kasta oo Soomaaliya iyo meel kasta oo Soomaali joogto mar qura looga wada dabaaldegay mar qura calankii Ingiriiska laga wada dejiyay oo cid gaar ah oo qabiil gaar ah oo ma jiro annaka dejino dadka kalena marka ku soo casuunay jirto ma jirto markii xamar la tagayina am Soomaali isku yimaanaysana wax hore looga sii heshiiyay oo sii socday bay ahayd marka Somaliland gaar u taagan oo muxuu ahaa Soomaali ka duwan oo xorriyad qaadatay ma jirto waxaan kaloo inagu darayaa Somaliland magac kelmadda laftigeeda waxa weeyaan waxa muqtay marka isticmaalku inoo yimiday waxa la inoo bixiyay British Somaliland Italian Somaliland French Somaliland in waqtigii qura ee la bedelay waxay ahayd 1950 ilaa 60kii markii gobolada in koonfurta in loo dhiibay muxuu ahaa Talyaaniga oo UN-tuna dusha ka maamulayso oo ahaa trusteeshipkii United Nations trusteeship territory of Somalia markaas Soomaaliya soo gashay laakiin Italian Somaliland bay ahayd markii aanu aan yaraan iskuulada ku jirayna in Somaliland quraha jirtay waxay ahayd French Somaliland way markaan inuu yaraa 60kii kadib dadkii iskuulada galaan ahaa marka wax quraha Somaliland jirtay waxay ahayd French Somaliland French Somaliland 60kii gudi gool bedelay 67kii meelaha
oo magacyo qabiil u bedelay laakiin marka hore French Somaliland bay ahayd marka aanu soo galo tii dowladda Soomaalida xilka ka saaran dowladda Soomaalida in midnimada Soomaaliyeed in waxa weeyaan sidan loo dhigayo marka ma aha oo marka la leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland waa arrin qalada in Soomaalidu dhan xadgudub waxa la yiraahdaa muxuu ahaa halada xanafla iyo waxa inaan looranin هذا الحنفلة تاني معها قويدا هذا الحنفلة قويدا لفتي هذا الحنفلة كلا قوقب كصومالي هذا الحنفلة ليس هذا ترد الشيء مع هذا الحنفلة دولة الصوماليات وحلوح الساري الدون كرو قنصية لون اعترافي إن وطن كصوماليات أردن يدو أي مسؤول كتاهي لو يعدوا إلى راس كامبوني إن تاس أردنا يدا مسؤول كقرن مدة إنا إلى السنة تاهي marka hadii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo wax tabanayay dawladda Soomaaliyeed bay tahay inay la hadasho ula hadashana waxa marka iyagu ay yihiin hadii marka qabiilka Isaaq la yiraahdo raalniga hada qabiilka afkaan ku dhifanaya waayo wadankii dhanaaba kala go'aya oo wadankeeni dhanaaba baabaaya marka waxaan yaani aynu hadallada dib ugu celinay ma taalo waa in runta isku sheegnaa waxa weyn ay moogtay maanta guida yaani horboodayay waa qabiilka Isaaq waxana moogtay iyakana sii waalay وإن هو SNMT Somali National Movement أو هاي إن أورور قبيل كاسة ليس أهل جماعة جويدا إن جويدا وطنك مركو هرجع في كم يدفنين ليس هو يصبحين ووحي ورنا نص شعب حين مركي دمبه والله نحرسه إبراهيم ميجا سمت ربابة الشيء إن كن يستقال بقولي أفريس جيتنكي أي SNMT كشرين مجال هذا برعكونه هشيين إن وطنك جوان الله نحرسه عبد الله يوسف باشيء مركو أتسوي جوجي يوتيوب كنا كجرا إنترنت كاي مرور بالله هلي كرا إنه كم مغلي إن أي إن جروب ده هرجيسي أي وطن ككلا جوين أيان دبتنا مركي دمبه ومقصة كلا هلا تانا الله وحري أي موقتي عبد الله مركا دولة دي الصومالي يضو وحى صورنا أركيسة وحويه إن أي سنة مكوس عطان وأدبرون على السنة وحويه dadka gobonnimada qaba ee gobolada ka soo jeeda awdal ee maakhir ka soo jeeday awdal ilaa gabiile ilaa wajaale dadka ka soo jooga cayn sool sanaag goboladaas oo dhan moogtay baran laas qoray laas moogtay kullu inta dhulkaas oo dhan dadkaasi waxa weyn midkoodna ma rabo muxuu ahaa inay wadanka Soomaaliyeed ka go'aan waxayna rumaysan yihiin gidigoodba inay nationka Soomaali ka mid yihiin waxayna aaminsan yihiin midnimada Soomaalidu inay muqaddis tahay waxa weey qofka jooga Garowe in iyo muxuu ahaa iyo in muxuu Garowe jooga iyo laascaanood dagaal ma dhexmari oo lama oran karo dagaal baa dhexmaray qofka jooga baran iyo laas qoray jooga iyo boosaasi jooga dagaal ma dhexmarin waa isla qabiilkii hartigii oo labadii dhanba degan marka qofka ku fikiraya in qabaa'ilka hartiga oo xuduud u sameeyo isagu ma ogolaan lahaa hadii burco iyo hargeysa xuduud ay qabiilada daaroodku ama hartigu dhexmariyaan ma aqbali lahaa isagu ma aqbali lahaa hadii qabiilada galbeedka dagaayay ee muqtay awdal iyo dagaayay ay ku yiraahdeen qasam ku gooyna ma aqbali lahaa waa maya marka waxa weey in Soomaali waxaan leeyahay anigu dawladda qaranka ay naga mas'uula dawladda federaalkiina in sidana u socotay xishoodkii ma soconayso waayo waxa weeyaan wadanadan adduunku iyo ku danahooda wataan waxaana ku marinayaan laynka iyo ku rabaan oo kala go'a Soomaalida waxay ku oranayaan Soomaaliya Somaliland baa tiina waxan saxiixa halkan iskugu yimaada marxaatigan dhiga waxyaalahan laga saxiixayo oo dhani وسيدي MOU أما memorandum of understanding كي أما إسفهم كي لو سنية محوها نيروبي أبدا الصومال ده أكله مركز ضمنا محكمة دي إنه نقضي على الغلط ده وحيالها دوك اللي هو جينا أيو موقت الدولة دي الصوماليين طرف كتها هي جينا يسمى لها وحياله وضك الصوماليين خطر جينا يا كلوجيه ده هو فرصينا يا من دماغ الصوماليين نفوجينا يا مركز أنا وحن له قبيل الصوماليين اللي جود دولة أوران مايو هذا ده على من أوران مايو ليس سنة وحس عداني واقلت تكلم وحن له إن دولة كستو هو جرت أدونك ده كده النفتو ده إلى لسا هنتيدو ده إلى لسا حريدو ده إلى لسا يدا مسؤولك دولة الصومالية ده كان كشة كان قبل ده وقوي قول دكان يدا مسؤولك قف هرجيس جوجو هو لو عنقو أي ودن كمسؤول أيو وحكم ممنوعين لجين وأيو محو هبوه خود له دوارن قلة يكفصح قادنيا إن عيدن كصومالية لجين وأيو لاس عانود يكفصح قادنيا إن عيدك الصوماليات بران لجين وايو عيدك قرك الصوماليات يكفصح قادنيا ما واحد كفصح قادني قفي كلها وانقوعيا يكفصح قادني مركان وحن لاعي من دماغ الصوماليات وحي كجرتا يدو كنت الله يسكو شيء كنتنا اللي واجهه قفكي صوماليا إيه تحتمنايا إيه أم موقت هاي لم موقت أنا وطن كان مرة بينا كم النقضو وحوي وين لقنعيو ليس وحيالها وقفك سقالت كقصمين أيو وين لودر القادم تكلي وحوي جروب كان ربك جويدا وجروب كهرجيسة هنشجعي هذه جور عليه وحيدهدين ولا نحسوق أساسا وقاينا يكلفت جودو ما أنت بشواشن وأنا فبراير شلنا أفر بيه هاي
kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii isla maalmaha magaalo la yidhaahdo dila iyo magaalo la yidhaahdo boorama kun iyo wax ka badan bay ku xasuuqeen iyagoo ciidamadii mingista la socday haddii markaa maanta uu ku dacwiyo qabiilkii gadabuursiga oo yidhaahdo waa la xasuuqay anna soomaaliya waan ka go'ayaa dee waa hadal uu odhan karo wuxuu odhan karaa waa la xasuuqay ininkuna cadowgaygaa tihiin buu odhan karaa gruubkan laftigiisala waan go'aya malaagsi xaq maaha in way soomaalidii baa la diidayaa in soomaali kala tagto soomaali way iswada laysay cid waliba cid bay dishay cid wallo soomaali dhibaataa soo gaadhay magaalo kastoo soomaali way burteen magaalada muqdisho burburka soo gaadhay meel uu soo gaadhay ma jirto magaalada baydhabo burburkii soo gaadhay iyo dadkii ku dhintay waad ogtihiin gobolada bariga wixii ka dhacay waad ogtihiin bariyihii hore qabiil soomaalidu markaa waxaasoo dhan tuu cuskado soomaalaan ka go'aya un ka tegaya dee ma jirto marka waxa weeye gruubadana hargeys ee beesha isaaq waliba u badan waxa weeye inay soomaali la fadhiisato siday tahayna ula fadhiisato laakiinse dadka kale aan loo aftuubin oo magac la yidhaahdo somaliland iyo soomaaliya intoo loogu hoos qariyo dabeetana waddankii sidaa lagu baabiyin sababta annagu markaan sidan gaar ugu hadlaya waxa weeye in soomaali ka sokowba annaka dadka iyaga aan ka hadlayeen kuleeyahay gobolladaasan degnaa si gaar ay noo saamaysaa berri haddii la kala go'o khatarta ugu weyn annagoona taariikhiyan aanan ka mid ahayn dhul aanan ka mid ahayn ayaa lagu qasbaya xukunno aan ka mid ahayn ayaa lagu haynaya hadhowna khatarta ku soo gaadha ama baaba ku soo gaadha adaa la noolaanaya marka waxay tahay in dadka waxaan kula talinaya ama qofkaasi gadabuursi ahaado ma ciise ahaado ma isaaq ha ahaado ama dhulmahaanta ahaado ma warsangeliada qabiil kastoo waqooyiga dega xaq buu leeyahay inuu hadlo hadduu soomaalinimada rumaysan yahay oo yidhaahdo waxaan socdo raalli kama ihi soomaalinimaan rumaysanahay soomaalina waa ma kala go'ayso soomaalina waa isku mid dowladda soomaalida waxa waajib ku ah in ayna taageerto oyna ka xishoon taageerada marka hadalka kulli waan qaybsanayaa halkaasaan kusii joojini